iyadoo muddooyinkii u dambeysay laga deerinayo xaaladda uu ku sugan yahay cisbitaalka TBda ee magaalada Boorama ayaa maanta maraan booqanay cisbitaalka TBda ee magaalada Boorama ayaa waxa cabasho xoogan ka muujiyay xaaladda uu ku sugan yahay cisbitaalka TBda shaqaalaha ka howlgala cisbitaalkaasi iyagoona sheegay in gabi ahaanba muddo 8 bilood wax mishaar la siinin shaqaalaha oo arrintan ka hadlaya ayaa wax ay sheegeen 7 bilood uu cakiran yahay shaqaalaha TBda haddii aan nahay muddo 7 bilood wax mishaar aan haynay ma jirto cid noo maqan iyo cid aan wax ka sugaynay iyo cid warbixin aan ka haynay midna ma jirto kolkaan weydiinayna wax ay halku ku maqan yahayna waxa la leeyahay in dawladda iyo wasaaradda iyo hay'adii baa isku maqan wasaaraddiina warna ma siinin hay'addiina warna ma siinin kolkaan waxaan noqonay oo maxaan geed haad waay cid alla cid aan u shaqaynayna cid alla wax ay ku maqan midna ma garanay dawladna warna ma siin hay'adna warna ma siin marka waxaan codsanaynaa in maadaama dad shaqaalaha nahay kiradii guryaha la nagu leeyahay guriyii waa la naga saaray biilashii waa la nagu leeyahay waa la wada haystaa wixii yaraan u soo shaqeynaa anagoo marka horeba mushaaragaagsanana qaadanayno $100 iyo waxaan dadba qaadanayno oo ummadayada u shaqeynayno iyo haddana wixii aan laanahay marka taasina waa nasiib darro waxaan ka codsanaynaa dawladda Soomaaliland iyo madaxweynaha Muuse Biixi Cabdi inuu arrinta ka hawl galo waliba rasiistanka ku dhex jira marka waxaan doonaynaa wixii dawladda inay wax noo qabtaan 7 biloodna bilaa mishaar baan nahay waxa la wax la noo qabanay ma jirto wax maamulo meesha noo joogaana ma jirto marka rajo waxaan ka sugaynaa inamada yaryar ay imka wax naga duubay in si fiican ay noogu dadaalaan TV-yada noogu diraan waliba ismadax inta ay imka uu joogo madaxweynaha imka cusub iyo mishaarka eegi wax ku dhacay ma garanayno marka saasaanu doonaynaa inaad nooga dadaashiin dhammaan waxaanu nahay maanta bishii 7 22 baan ku jirnaa marka waxa loo xirijo noo maqan ma jirto maamulka ay laftidiisa waa kaayimka kule aan waxba la igama duubayo marka waxaan doonaynaa in si fiican noogu faafaysin oo noogu geysin ayaanu doonaynaa dadka bini'aadanka ee ama dalka ama dadka koobina ma garanayno cidna ma garanayno alla mooyaane inama yarado sidiina leeno jaamacada noogu jira oo meel noogu jira marka waxaanu doonaynaa inaad noo soo dadaashin hadduu Ilaahay yiraahdo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh geesta kale iyaguna waxa cabasho xoogan muujiyay dadka xanuunka la jiifay cisbitaalkaasi TBda ee magaalada Boorama waxaana ay sheegeen in badan cabashada waan dhiibnay maamulka in badan baan yiraahdeen ayaan ku cabashadayna orto dhiibta maamulku waxa hayaan oo maanta halkaana dadkayga nagu caawiyo ma jiro iyagii waa marno bishii 8 baa lacagtooda ka maqan oo iyaga ilaahay horta caafimaadka hooseediyo waan u ducayn anaga dawladda noogu dadaalaan anaguna awood kale ma hayno meesha xaabo ma taalo intaas oo bilood xaabo nooma taalo wax raashin loogu kariyaa ma jiro qiilo badan waan ka tagnay maayirka waan u tagnay intaas oo jeer baa cabasho anagoo 9 anagoo 6 anagoo 7 waxba ma hayeen wax maayir halaada anaga masuula dad caynkaas oo bar saabkaan u tagnay intaas oo jeer anagoo hortiisa fariisan bar saabti saasan oo update-kii gobolka xukumaysi waan baahayno waadi arkay waxa duuno lacag aan ku leenahay nasiina ma jirto waxaan ku leenahay meeshii baahi baa taale baahdeeda hoos noo aan waxba ma hayo buuli ordo magaalada gala naay beeshinkii dhakhtarka Aralino in muddo ilaa 5 bilood ilaa 7 bilood ilaa 7 bilood ma hayno wax raashina waxaan ku yiri wax alla wax arin oo halka ku hayna ma jiro in dad socon karayo oo xaafadihu cunto u doonan karaya u doonan karayna ma yihiin dad waxaan u baahanahay Itoobiya ilaa ka yimid ilaa ma garantaa ilaa xuduudaha fog in Soomaaliland ilaa xeebaha in marka waxaan u baahanahay inay madaxweynaha iyo ma garataa iyo cid ay khosayso wasaaradda caafimaadka iyo WFP duba inay waxaan ku naga soo caawiso وسكري سحنة ري TV بورما.